إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه قولل كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dad iyo qaadirkeeni wacna qaata amarkiisa alhamdulillah wa thana'u lillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة تفسير كذا إنه كل حجرنا وحين نكبل بين آيات بقولي تضباط يستيد قال الله تعالى إلهي بأوحي يا أيها الذين آمنوا تتكي إلهي رميو كتب عليكم القصاص وحليدن كواتبيه إنا إسوق قصاصتان في القتلى تتكي للاي قف كاهر السدو وحد لين استدلو دلو الحر بالحر قفكي حرتها وحلو دلي قف حرة قفكي كلا حرتها ودلي والعبد بالعبد أدونكينا أدونكي بالو دلي والأنثى بالأنثى تيدا الدقايد تودا الدقايد دشال لو دلي فمن عفي له قفك لو عفية لو ضعفه من أخيه walaalkiisii uu dilay shay baa loo saamaxay oo qisaastii baa laga daayay fattibaa'un bil ma'ruf raacitaan baa waajiba si wanaagsan isagii loo raaco oo magta looga doono wa adaa'un baa waajiba isagiina inuu bixiyo kii magta laga doonayay ilayhi kii ka doonayay inuu u siiyo bi ihsaan si wanaagsan dalika tan la idin soo dhigay ahkaamtani تخفيف وفضودين من ربكم إلهي حقي سكيمد ورحمة نحريس وية فمن اعتدى قفك حد قدبه بعد ذلك قام ماذا كذب فله عذاب أليم عذاب كل البولايه ولكم وحاليهم في القصاص قصاص تعددك ليسو قصاصي ليسو دليو وحيدين كتر حياتنا للبايدين كترته يا أولي الألباب dadka aqoonyahanka aqliga lahow la'allakum tattaqun ina ilaahay ka cabsataan baa la rajaynayaa ama dilka ka dhowrsataan oo iska ilaalisaan kullay aayaadkii ahkaamtaynu maraynaa marka hore waxaan isku day doonaa tarkiibka inaynu sameeyno furfurida erayadu iyo macnaha ay bixinayaan iyo awjuhdooduna waa muhiim marka saddexaadna wixii mustafaadaad jira ayaa wixii Allah inooga qadaray aynu sheegi tartiibtaas saddexda jeer hadii lagu soo noqdo aayada waa wixii aad ka fahamta adiga itaalka way marka ahkaamta halkan ka bilaabaysa waxa u soo horeysa qisaastii waa xeer ciqaabeedka loo yaqaano dilka aayadku sababtay ku soo degeena waxay ahayd jaahiliyadii hore jaahiliya waxa la yiraahdaa dadkan diinta ku dhaqminuune umadu umaysinnayn way kala duwanaayeen xagga qabaa'ilkuna maysinnayn rag iyo dumarna maysinnayn saadaradeed marka uu nin dilo nin kale beesha wax laga dilay waxay oran jirtay ninka isaga ahi uma dhigmo kaayagan uu dilay marka isaga waxba dili meeyne waxa noo soo qabataan mid ka shilis mid reer hebel yaa laga dilaa Soomaynaan oran jir yaa laga dilaado waa mid shilis weey mid ka shilis noo raadiyo war ma aha kana dilay kiina waa kane idinku dila ma iska badhaafaba hadaba annaga naqaana kaanu dilayne halkaas ay ka wadi jireen qaar kalena waxay oran jireen kaayagu nin aad u weyn buu haarinkiisu tiirsan yahay laba u dhigmaya ama saddex keena hadaa keeni weydaana waanu ka badin saas arinku ku socon jir hadii ruux dumar la dilana waxa la oran jiray teeb maxay sheegaysaa waa gabadhe yaa farteedii halaha la siiyo aan gabadh baa nin loo dilayaa halkeeda ha fadhido saas ay oran jiray ilma yar haduu yahay saas la oran jiray oday gaboobayna saas la oran jiray deekan cimrigiisii uu soo dhameystay nin cusub maxay nuga dili ilaa hadda qawaaniinta Faransiga qaar kood bacaynkaas oo qofku hadii uu weyn yahay oo 80 jir iyo 100 jir uu yahay odayaashu waa kuwan ku sii yaacay qaanuunka Faransiiska iyo wuxuu sheegay inaan magtiisu qofkan kale dhalinyarada la mid ahayn leena uu deekan uu madhayba waqtigii badda lagu taagay la dilay uu marayaaba waxa soo dhan oo jiray baa Ilaahay uu suuliyo
axkaamtan qisaastu dhigay oo halkan maaragtay uu inoo dhigay markaasaa rabbi subxaana wa tacaala kutiba buu cabiraya kutiba waxa la waajibiye wey qisaas baa la waajibiyey qisaastuna waxa weeye waa raadraaca fartada calaa aahaarihimaa qasasan waa raadgur anaa qofku sideebuu wax u dilay halkeebuu ka dilay muxuu wax ku dilay waxaasoo dhan baa ayaa la raacaya markaasaa qisaas lagu sheegay marka qisaastii waxay noqotaa dee quri iyo qoomba way noqotaayoo mararka qaarkood qofka naftiisa laga qisaasa qofuu dilay daraaddeed mararka qaarkoodna xubin uu gooyey baa isagana laga jaraa xubin uu gooyey ayaa laga jaraa labaduba waa raadraaci waana cadaaladii wey marka sida la isugu qisaasayana ilaahay uu caddeeyo kii xorta ahaa markuu xor dilo waa loo dili addoonkiina hadduu addoon dilo gabadhii hadday gabadh disho marka cagsiga miyaan talow loo dilayn maya waa loo dilaya iyagana oo kii xorta ahaa haddii uu addoon dilo masale khilaafiya weeye culimmadu laakiin culimada qayb ka mid a baa waxay qabaan in kan xortaa qudhiisa la dilayo hadduu addoon dilay waana aimada qaarkood baana taa u arkaya inuu yahay saxiix xadiidka odhanaya qof xora cabdi looma dilayana waa daciif alxuru bilxor addoonkiina hadduu addoon dilo tii dhadigay hadday tu dhadig disho hadday nin disho ta dhadiga waa la dili hadduu ninku ruux dumara dilana waa loo dili doonaa markaa sidaasay ayay u socotaayoo dadku ay isugu dhigbayaan marka haddaba islaamku wuxuu ikhtiyaar siiyey qofkan la dilay dadkii xigtadiisa ahaa saddex arrimood bay kala dooranayaan inay qisaastaan iyo inay mag qaataan iyo inay cafiyaan saddexdaa ayay kala dooranayaan waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura sidaa ilaahay suurat lisraa ku tilmaamay mansuur weeye qofku waa loo hiiliyey marka saddexdaa arrimood midunbuu dooranaya siduu nebiguba ku fasiray calayhi salaatu wasalaam hadday dhacdo markaa qofkii inuu idhaahdo anigu qisaas ma rabo laakiin waxaan doonayaa inaan mag qaato dhexlayaashiibaa caynkaa yidhi waa tan ay aayaddu ka warramaysa markaa aadaabtii baa markaa laga maarmaana dadkan yidhi qisaastii waanu iska dhaafno mag baanu doonaynaa dee qofkii ay magta ka doonayeen waa inay markaas si adab la u raacaan oo aanay dhibin oo aanay kadeedin ee sharcigu wixii u ogolaa ay sameeyaanoo waa taa ilaahay uhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf marka faman cufiya lahu min akhiihi shayun waxay ka warramaysaa qofkii wax dilay oo la cafiyey yaa cafiyey dhexlayaashii kala dilay ayaa cafiyey marka faman cufiyadu waa qofkii wax dilay wey lahu isagii baa la cafiyey oo waxaa laga dhaafay qisaastii oo mag baa laga doonaya yaa cafiyey min akhiihi walaalkiisii walaalkuna waa kee waa kii wax laga dilay shayun buu u cafiyeyoo qisaastii buu wax ka daayay markaa maxaa waajiba faatibaacun bilmacruuf waxaa lagula hadlayaa faatibaacun bilmacruuf kii magta doonaya cafiska ku bixiyey qisaasta faatibaacun bilmacruuf si wanaagsan u raac waxba laabta ha u garaacin ha u hanjabin ha u baanine aayarun magtiisii kii magtag lagu lahaana yuu barkimada dheeraysanin kol haddii qisaastii laga cafiye wa adaaun ilayhi biixsaan isaguna si wanaagsan ha isaga bixiyo labadaba toos buu ilaahay ula hadlay saas arrinku ku wanaagsanaanaya qofkan ikhtiyaarkiisii iyo xaqiisii baa la siiyey markaynu isdul taagno aayadda faman cufiya lahu aayaddu waxay dhiirinaysaa bay culimmadu leeyihin cafiska mar haddii ikhtiyaarkii lagu siiyey oo awooddii lagu siiyey inaad iska cafido oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii loo keenay ninkii la odhan jiray saaxibu niac xadhig leh xadhigle waad garanaysaa xadiidkiisa aynu sunanka ku soo marnay iyadoo lasoo xidhayoo waxuu dilayoo qisaas loo soo joojiyey waar magmaad ka qaadan maya markaasuu haddana ku celiyey nebigu haddana wuu ku celiyey mar saddexaadkii uu idhaafiya isma dhaamaane ninkii baa nebiga loo sheegoo la yidhi ninkii baa loo sheegoo le nebigu wuxuu yihi waa isku mid ninkii wuu soo noqdo dabeetana waa kii cafiyey iyadoo xadhiggii uu jiidanaya waa kii dhaqaajiyey xadhigle loo bixiyey saaxibu nidac waaya faman cufiya lahu marka cafiskaasuu nasku dhiiri gelinayaa min akhiihi shayun tankiirkaasina wuxuu tilmaamayaa bay leeyihin shayuntaas taqliil
in yaroo cafisa hadduu helo waa looga faa'iideynayaa haddii 100 qof dhexlayaan qofkan isaga ah la dilay magtiisa 100 qof baa iska leh mid ka mid ah wuxuu yidhi anigu waan cafiyey 99 kalena waxay yidhaahaan qisaas baanu doonaynaa kaa cafiyey baa lagu xisaabtamayaa 99 kaleba isagaa saameynayo kaasaa looga faa'iideynayaa oo markaa cafiska lagu soconayaa diyadii baa loo bayrayaa markaa waxay aayaddu faa'iideynaysaa shayga ukhuwada la yidhaahdaa inaanu tegaynin oo waxa dilka la yidhaahdo qofkii dee haddii aanu xalaashan ama wax kale ahayn inaanu ku gaaloobaynin sida ay qabaan nimanka loo yaqaano khawaarijtoo kale oo waxay yidhaahdaan qofku markuu dembi weyn ku dhaco wixii xataa gaalnimada ka sokeeyaba wuu ku gaaloobay bay hadduu sinaysto hadduu khamriga cabo hadduu qof dilo waa gaal muctasilada laftigoodu way ku waafaqsan yihiin laakiin wuxuuna kaga yaro sokeeyaan mansilatu bayna almansilatayn wixii ay odhan jireen cilmiga caqiidada laga warrami jiray ayay qabaan gaalna maaha islaamna maaha meel dhexu taagan yahay leenkaas marka ukhuwadii may meeshii ka tegin haba la isdilee haddana dee dadkii waa dad weli muslina wey فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ومعروف هي إحسان قالوا قدر بولاي هاي وقت بولاي هاي إلا وذا تحكي لي قال إلا بحني يا وقت إلا بحني يضدك الحلياشة سيدي لوجو قيبني إحسان كأي معروف كأي نقنايا إحسان كأي معروف كي ولا قتك هدان قال إلا بحنين هدا وقت إلا جو بحنين هدان عدي لهاي لسين ذلك تخفيف من ربكم ورحمة علماء التفسير waxay kutubooda ku qoraan inay kala duwan tahay magteeniyati ummadii hore takhfiif qisaasti iyo magti iyo arrimaha la isbarbar dhigay dadka ikhtiyaarka la siiyay wax laga dilay ayaa ilaahay fudayd ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala ummadii hore fursadan ma haysan nimankii reer banu israa'iil qisaasun baa waajibahay qoladii reer nasaarana mag un baa waajibahay saddexdiiba kala doorta baa inaga قصاص أما مج أما عفس لبضب وان كاداي قفكو أوران كرا ذلك التخفيف من ربكم ورحمة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وحي شيء يساء قفك أنت كذب حد قد عذاب كل البلاي هاي وحن شرعي جاهين بقفك دوني تصالح لأن تصالحان سواء قادنا وحبضنا نسوين وقال هذا الصومالي ده أيا كم إذا اعتداها يحد قذب كاه qofkii mag buu qaatay waana arrin imika iska badan markuu magtii qaatay ayuu haddana ama kuwii dhexlayaashii baa magtii qaatay kolkaasay dileen ciddii ay magta ka qaateen iyagiina waa la dilayaa qofka kol hadduu dilay xeer ciqaabeedkii baa la marinayaa dilka ahaa ilaan isagaa raalli noqday mar haddii aan la qasbin ee uu raalli noqday waxaa kaloo xadgudubkaa ka mid ah in qofkii wax ka dilay mid aan ahaynba inuu dilo wixii la oran jiray aanada Soomaalidu inkaartii aafaadka ay ku qabtay waa xadgudub adduunyadana cadaab kul buu leeyahay qofkaas aakhirana cadaab buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo inala hadlaya waxa uu leeyahay qisaasta nolol baa idin ku sugan waxa la isweydiin karaa haddii qofku wax dilay oo kii uu dilay uu dhintay isagiina la dilay oo labadoodiiba iska daba dhinteen noloshu xagee ku jirtaa noloshu waxay ku jirtaa inta dambe haraysa intii dambe qoryaha isu qaadan lahayd isku muruxsan lahayd isku fakan lahayd ayaa badbaadaysa taxun bay ku alla taqaana dadka qaarna kitaabka joojiya qaarna hubka joojiya laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadid qayb kitaabka joojinaya ka kitaabka ka soo boodana xadiidka soo arkaya markuu arkay iyadoo dhakada loo caseeyay kii wax dilay mid waliba hubkii buu iska dhigaya markuu arkay iyadoo magba aanu bixininba uu dilay magba ma bixinina odayaalba u dhaqaajiyo odayaashii baa magtiina ka bixiyay isagiina halkanaaba la qarqarinayaaba kii la murmaba uu ku nabaya asaad arkaysaa mid quroo lagu leeyahay toban baab u dilay iska ilaaliya waa dhagal qabe waa dhiigi cabe waa gacan ku dhiigle waxaase meelahan iska marmarayaaba intaasoo qof buu kaga tufay wax dhiboo soo gaarayba ma jiro marka halkaa waxaynu ka arkaynaa dadka naftooda waa isku nafgeliyaan geeri iyo nololba waanay wada dhiman karaan haddii loo turi waayo waanay wada noolaan karaan haddii loo turo
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كتبتي reer banu Israa'iil saasay sheegaysay keenana saasun baa ku sheegan qofka qof dila waa isagoo dadkii oo dhan wada laayo kale qofka qof nooleeya wuxuu ka dhigan isagoo dadkii oo dhan wada nooleeyay oo xurmo kaliya iyo xijaab kaliya ay nafu wada leeyihiin marka hadduu qofku xurmada iyo xijaabka soo jabiyo oo uu mid soo dilo inta kalena har u jiidi maayo inta kalena Soomaalidu way ka baqan jireen qofka gacan ku dhiglaha oo waxay leeyihiin waa dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqaya cid walba uu ka shakeeyaa marka waa laga baqan jiray leanna karaamadii iyo isaga laftiisa baa quustay qofkii marka haddii qof la dilo dadkii oo dhan baa la laayay haddii qof la badbaadiyana ama la nooleeyana dadkii oo dhan baa la wada nooleeyay saasay xayaatada ugu suganta waa ilaahay addoomaha abuuray subxaanahu wa tacaala ay yaqaanay ayaa sidaa ku tilmaamay dhab weeye mujtamacaadka had iyo jeer ooga shareecada ku dhaqma wuu yaraadaa waxaa la yidhaahdaa dilka iyo fasaadka meelaha dilka laga joojiyana waxa bata ama qisaasta laga joojiyana dilka ayaa aada u bata culamaa ulbalaaqa noocyadooda kala duwan waxay isla waafaqsan yihiin aayaddan eray la mid ahoo la isu geegeeyo oo la barbar dhici karaya inaanu jiro balaaqada iyo fasaxadda halkii u sarraysay taaganta markaasaa erayo badan baa la isku dayay bal in lagu soo dhoweeyo ma soo dhowaanaya carabtu waxay ku mahmaahi jireen alqatlu anfaa lilqatli dilku dilka isagaa joojin badan xataa taasina kuma soo dhowaanayso haddii cidi wax disho in la dilaabaa dilka joojisa bay odhan jireen taasina kuma dhowaanayso oo qatli iyo qisaas baa kala duwan waayo qatligu dil garana wuu noqdaa dil gardaraana wuu noqdaa laakiin qisaastu waa dil xaqahum dil xaqa wey marka taasi waa thaqaafada caamka ah iyo aqoonta guud mooyaane qisaasta iyo axkaamteeda waxay leedahay baab dhan oo dee fiqiga ahoo halkan aynaan kaga bixi karaynin laakiin aayadda ilaahay wuxuu inoogu baraarujiyey subxaana wa tacaala in shareecada raaciddeedu ay leedahay waxyaabo aada iyo aada u cajiiba marka loo eego dadka caqliga leh ilaahayna ka cabsanaya yaa ulil albaab lacallakum tattaquun cid waliba qisaastan wanaaggeedu uma muuqdo ee waxay u muuqanayaan dadka caqligoodu wanaagsan yahay si fiican u fikiraya oo ummadda si caama u eegaya oo aragtidooda caafimaad qabto iyo dadka ilaahay ka cabsanaya kuwa kale uma muuqato marka abraz khasaa'is shariicati alislaamiya shareecada islaamku waxay leedahay waxyaabo khasaa'is oo marka la raaco iyada u gooniya waxaa ka mid a taxqiiqu alcadaala cadaalad waxaa lagu xaqiijin karaa keliya shareecada la raaco waa dhab weeye caalamka maanta inay horu mareen cadaalad hayaan sheegaya dadku ma sina inagu meelahaas bay ka nacnac leeyihiin oo dee ciddaan aqoon bay u sheegayaane laakiin madaxda iyo maalqabeenka meel walba jooga dadka fuqarada lama sina waa arrin macruufa weeye sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu uhi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl marka dadka kala xukumaysaan cadaalad ku kala xukuma baa ilahay isagoo addoomaha la hadlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabigii uu jeclaa wuxuu ku yihi tashfacu fii xaddin min xuduud illaah usaamow maxeer ciqaabeed ilaahay oo maxkamadda horteeda ka cadaaday baad ka ergeynaysa dheguhu ka raacay asxaabigiina waa kii firdhaday inantayda faadumo haddii ay ku dhacdo dembigan gacantan goyn lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka cadaalad marka la doonayo iyo dadku minjo iyo madax iyo maalqabeen iyo mudan inay sinmaan waa shareecada un ricaayatu maslaxati اlmujtamac wasadu baab اlfasaad maslaxadda caamka oo la eego iyo albaabka inay fitna dhacdo waxaa lagu joojin karaa un shareecada la raaco dar-u lmafaasid wa jalbu lmasaalix in maslaxadda ay timaado mafsadana joogsato shareecada ogiddeedu bay ku iman kartaa ogidda shareecada waxaa ku imanaysa waa ixyaa alraqiib اlijtimaaci qofka waxaa iyo ummaddaba waxaa loo baraa raqiib daakhili iyo raqiib ijtimaaciya kala jira macnaha dareenka wanaagsan ee iimaaniga ah in qofka loo dhiso dadkana loo dhiso waxay ku iman kartaa un ku dhaqanka shareecada islaamka taysiir abwaab alxalaal waطayibaat
kudhaqanka shareecada waxaa miisaadkeeda ka mid ah xalaasha la dhiiri gelinaya xaaraantana waa la hakinaya haddii shareecada lagu dhaqmi waayo xaaraantii baa la xayeysiinayaa xalaashana dadku way ka dhaqaajinayaan ama waabay sinmayaan amba qofkii xalaasha doonaya kii xaaraanta doonaya markaasaa wixii xaaraanta la odhan jiray ay noqonaysaa mid xalaashii ka sarrayn karta shareecadoo la raacaa waxa weeye dabiicatuha alxaasima waxay leedahay wax la yidhaahdo in la kala go-o dhibaato weyn bay leedahay mujtamacu inuu kala lusho uunoo aanu kala shaqo tegin oo ay murmayaan uun dadku wax xaasimahoo dadkan kala goyn karaa shareecadaa jirta ku dhaqankeeda bal adigu eeg broseska iyo nidaamada la marayo garsoorka waa 6 maxkamadood soomaydaan arag kanaa laga bilaabaya waa degmada iyo gobolka iyo tasare iyo dib u eegid iyo ishortaag iyo qalinta iska tallaab waa ilaa 6 meelood 6daa meelood mid waliba sanad bay soconaysaa dacwad yaroo caantayna 6 sannadood soconaysa dadkiiba markaa waaba la isdilay amnigii baa khalkhalay nacaybshii baa batay laakiin shareecada labada qof wax isu sheegta waa muduciya badaa calay muduciguna markhaatiyu leeyahay kan kale badaa calayhiguna wax loo sheeganayaana dhaar buu leeyahay way dhamaatayba maxaynu dugsi iyo hadal midna la isma ag taagaba dugsi baa la isag taaga hadal la isma ag taago shayga xaasimka dadka kala jari kara waa sharciga weeye cuquubaadkan ilaahay isagaa xulay qof walbana isaga ayaa u dhigay wixii ku habboon saa daraaddeed buu ku cileeyey nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiim waa ciqaab ku habboon qofkii geystay ayay ku habboontay ciqaabtaasi in lagu abaalmariyo shareecada ku dhaqankeedu waxa uu inoo yaboohayaa ballantii ilaahay inaynu helno subxaana wa tacaala ballan baa ilaahay uu qaadayoo ah inuu iskeen garab taagayo oo uu inoo hiilinayo shaydaanka inooga hiilinaya nafteenna inooga hiilinaya gaalka inooga hiilinayo waxay ku xidhan tahay shareecadiisa oo la dhaqan geliya aayaadkan dhegayso yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum haddii aad dadkii muuminiinta ahaa oo ilaahay u hiilisaan macnaha sharcigiisa ku dhaqantaan isna uu idiin hiilin walaa yansuranna allahu man yansuruh uu dhaartay ilaahay wuxuu uhi walle waan isku dhaartaye cidda ilaahay u hiilisay isna wuu u hiilin doonaa wama nasru ilaa min cindi illaah innahum lahum lmansuuruun وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والله غالب على أمره فحاصر لما بلما إلهي وقاضي هل شرطين باكو حرام شرط قاسنا وحوي شرعي سينين فلينه إذن وحين لا وحلا وحا والدين هايست هي وريرك تقال لك قبيل كوا كوحيد كوا فتنة وشرعي وددك أنا مرينين انت وحا اسكحران دي قف تنبيلاه ضد بدن لا يبا اسكحران umadaha sheeyay hay'adaha ilaada samafal baanayna imika waxa bay la soo baxeen wax cusub oo waxay leeyihiin xuquuqul insaanka iyo baydaan ku wanaagsanayno qofka dilka ku xukunta waxa laga yaabaa in la dulmiyay bal arrinkiisa ha laga warwareego biil baaba loo qorayaa marka biil baa isaga reerkiisa loo qorayaa dee qaatil ogaaday markuu xabsiga galay inuu $30 leeyahay reerkiisuna $30 leeyahay waa uu shaqo tagayaaba meeshuu shaqo tagayaaba waa inuu dadka laayo kaarta kala haddana timidoo kuwii qisaasta loo haystay markay sii bateen ee la yidhi warba hala qisaasadee nabadgelyadu si ay u timaado may xasuuq bay ogaanaysaa haddana kaarta kala haddana soo baxday waxa la yidhi haddii 10 qof iyo 20 iyo 30 iyo dadka la qisaasaya noodaan indhaha caalamka soo jeesanay xasuuq bay noqonaysaa xasuuquna caalamka agtiisa waa ka xaraan halkooda ha iska wadaan kolba miduun ha lagu daro marka qabiilana dagaal ka joogsan maayo magaalana ka joogsan maayo nabadgelyana sugmi mayso almuhim nasriga ilaahay waxaynu ku helaynaa iyo naxariista iyo nabadgelyada inaynu fulino sharciga ilaahay sida ilaahay noo tilmaamay walakum fil qisaas hayatun ya ulil albab shariicaduna waxay leedahay samaaxad bay leedahay marka dadku si dhaba ay u fuliyaan dadka qulubtooda baa ilaahay u dajiyaaba qulubtooda baa degaysada saadaraade taariikhdii waqtigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafada waxa dib ugu noqotaa xuduudii la fulinayay tirada ay ahayd wax aad u yar baahan jireen والله سبحانه وتعالى أعلم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان.